tirada iyo nambaradu iyaga ayaa faallo iska bixiya. 5 qof oo kasta oo dunida ku nool mid ka mid ah ayaa u dhashay dalka Shiinaha. maantana Shiinuhu waa dalka labaad ee shidaalka ugu badan dibadda ka soo iibsada marka laga reebo waddanka Mareykanka. laakiin waxay haystaan mid ka mid ah kobocyada dhaqaale ee dunida ugu wanaagsan, iyadoo baahida ay shidaalka u qabaan ay 7 jeer ka badan tahay tirada dadkeeda, xilli ay intii ay qayb uga heshay nasiibkeeduna uu sii daba yar yahay. waxaana Shiinuhu ay xilligan howlgab ka yihiin inay soo saaraan xaddiga shidaal ee ay u baahan yihiin. taasina waxay khasab kaga dhigaysaa inay dibadda ka soo iibsato kala badh shidaalka ay u baahan tahay. sanadaha soo socdaana waxaa la saadaaliyey in shidaalka ay la soo degi doonaan uu gaari doono $3 $2. haddii kalena waxay la kulmaysaa hoos u dhac dhaqaale oo dhammaystiran. taa darteedna waxaa lama huraana inay dalal cusub u soo saarto shidaal, xilli ay dalalkaa ka jiraan iska horimaado isa soo taraya. qorshaha shidaal raadinta ay Shiinuhu ku dhaqaaqeen waxa uu keenay inay isku dhacaan dalka shidaalka ugu badan kala soo dega dibadda oo ah waddanka Mareykanka. dagaalkii shidaalku waa bilaabmay. magaalada Pekin ee dalka Shiinaha bishii Abriil sanadkii 2007 waxaa laga furay carwadii 8aad ee soo saarista agabka shidaalka, waxaana kulan ku yeeshay halkaasi shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee shidaalka soo saara. carwada waxaa soo booqday ilaa 30,000 oo ruux oo ka kala yimi ilaa 42 waddan oo caalamka, iyadoo shirkadaha carwada ka qayb qaatana ay soo bandhigeen noocyo kala duwan oo ka mid ah agabka lagu soo saaro waxa loo yaqaano dahabka madow oo ah shidaalka, kaasoo ay ka soo jiidayaan ceelasha ku yaalla badaha dhexdooda iyo barrigaba. agabkaasoo ay weheliyaan dhuumaha shidaalka u qaada masaafada durugsan iyo gaadiidka xamuulka ee shidaalka xambaara. carwada waxaa kale oo soo booqday dadka ka ganacsada suuqyada shidaalka, halka sidoo kalena aanay ka marnayn dhinacyada sirdoonka qarsoodiga ah oo xoogo basaasnimo ka raadinayay isbaahisyada dhanka shidaal qodista ee Shiinuhu caalamka ka sameynayaan. waa kan mid ka mid ah howlwadeennadii ka socday shirkadda shidaalka ee dalka Suudaan. waxa suuragalay ah in aan idhaahdo sanad walba waxa kor u kacaya iskaashiga shirkadaha shidaalka ee Shiinaha iyo Suudaan, waxaanan aaminsanahay in Shiinuhu haystaan fursado muhiim ah, waayo waxaa gacanta ugu jira tiknoolajiyad horumarsan, qiimuhuna waa jaban yahay halkan dalka Shiinaha. taasina waa mid ka mid ah waxa ay dadku u imanayaan waddankan. dhankiisana khabiirka kale ee reer Iiraan waxa uu noo sharaxayaa sababta ay dalkiisu isugu barbarinayaan dhanka Shiinaha marka ay timaado soo saarka iyo ka ganacsiga shidaalku. Mareykanka iyo reer galbeed amaba reer Yurub waxaa naga dhaxeeya mashaakil siyaasadeed, laakiin marka aad eegto Shiinaha amaba Hindiya amaba Aasiyada kale arrintu sidaasi waa ka duwan tahay. xiriirka lala yeelan karo Shiinuhu waxa uu ka fudud yahay oo annaga nooga roon yahay xiriirkaanu la wadaagi karno reer Yurub iyo Mareykanka. waa maxay si aragtida ganacsatada Hindiya ku saabsan Shiinaha iyo xiriirkiisa ganacsi gaar ahaan dhanka shidaalka? dhammaan agabka shirkadaha Mareykanku ku iibinayaan Hindiya iyo caalamka oo dhan waxaa lagu sameeyay dalka Shiinaha, laakiin waxay u iibgeynayaan si loo moodo in Mareykanku soo saaray. waan ognahay waxa soo saara Shiinaha directly. muuqaalka guud ee caasimadda Shiinuhu waa mid aan ka turjumaynin isbeddelka dhaqaale ee dalkaasi gaaray 20kii sannadood ee u dambeeyayna waxaa qiyaastan 90% kordhay tirada gaadiidka ee waddankaasi lagu wato. taa macnaheedu waa in marka la gaaro sanadka 2030 ay Shiinuhu soo saari doonaan gaadiid ka badan ka ay Mareykanku soo saaraan. kobaca dhaqaale ee xaddiga leh ee ka hirgelaya dalkoodana waxa uu khasab kaga dhigayaa Shiinaha inay kordhiyaan shidaalka ay dalkooda kala soo baxaan, maadaama xayiraadda la saaray kaydka shidaalka ee waddankaasi uu caqabad ku yahay shaqada shirkadaha ganacsiga ee dalkaas.
dhibaatooyinka ay shidaal yaraantu ku hayso waddanka shiinaha waxaa laga dheehan karaa safafka dhaadheer ee ay gaadiidleyda tagaasidu subaxnimada hore u gelayaan kaalimaha shidaalka. si aanu shaqadayada u bilowno 8 subaxnimo waa in aanu safka shidaalka galnaa 6 subaxnimo qiyaastii 2 saacadood in ka badan ayaad ku gaari doonaa kaalinta shidaalka. dowladda shiinuhu waxay sanadihii 80-yadii qarnigeena dhaafay abuurtay 3 shirkadood oo waaweyn oo ay ugu talagashay inay daboolaan baahida shidaalka ee waddanku leeyahay, gudahana u galaan oo ka qayb qaataan tartanka suuqyada shidaalka ee caalamiga ah. waxaana shirkadaha ka mid ah shirkadda wadaniga ee badaha dhexdooda ka soo saarta shidaalka, iyo shirkadda labaad ee petrokimikada oo ay saddexayso shirkadda wadaniga ee shidaalka shiinuhu. saddexdaa shirkadood waxaa qiyaastii ka shaqeeya ilaa 13,000 oo shaqaale ah, waxaana ay leeyihiin macaamiil ay ka mid yihiin ganacsato waaweyn oo ku sugan suuqyada magaalooyinka London, New York iyo Singapore. rabitaanka shiinuhu ku doonayaan khayraad ay dalka dibadiisa ka helaan waxa uu ku qasbay inay galaan isku horimaad caalami ah, iyadoo dal waliba uu dhanka dambe marsaday waxoogaagii shidaalka ah ee khayraadkiisa ka mid ahaa, waxaana kuwaasi ugu horeeya qaaradda Afrika, inkastoo hayaanka shiinuhu uu ugu haajirayo qaaraddaasi aanu marnaba hakadgelin. qiyaastii 10% shidaalka caalamiga waxa uu ka yimaadaa qaaradda Afrika, laakiin arrinta in la xuso mudan waxay tahay in tartanka ugu badan ee shidaalku uu xilligan ka jiro qaaradda ah. shiinuhuna waxay qayb ka yihiin tartankaasi, inkastoo ay muuqato inay soo habsaame oo goor dambe soconaya. soo daahistaasina waxay keentay in madaxweynaha shiinaha Hun Chauti uu laftiisu socdaallo ku gaalaabixiyo dacallada qaaradda madow, isagoo baadi goobaya heshiisyo cusub oo dhanka soo saarista shidaalka ah oo uu dalkiisu galo, isagoo madaxweynaha shiinuhu ka dherigsan oo xambaarsan waxyaabaha ay hogaamiyaasha qaaradda Afrika raalliga ku noqonayaan ee heshiisyada kula geli karaan. shirkadaha shiinuhu waxay si wacan uga howlgalaan gudaha qaaradda Afrika. marka ay yimaadaan waddan ka mid ah Afrika waxa ay u bandhigaan in ay doonayaan heshiis waqtiga dheera, waxayna u ballan qaadayaan in ay u dhisayaan jid tareen oo cusub amaba dekad uu waddan Afrikaan ah aad ugu baahnaa, iyaga oo lacaga deeq ahna u ballan qaada. taasina waa waxyaabo aanay awood u lahayn shirkadaha reer galbeedka qaarkood sida Total iyo British Petroleum. runtii arrimahaasi xaqiiqda ahi waa waxyaabaha ay shirkadihii soo jireenka ahaa inta badan u waayaan heshiisyo cusub. dalka Chad ee bartamaha Afrika ku yaala waxa uu muddo sanadaha ka hor ku biiray dalalka soo saara shidaalka. korkacii ku yimid qiimaha shidaalka darteedna waxa waddankaasi muddo kooban helay faa'iido dhaqaale oo aad u ballaaran, isagoo tusaale ahaan sanadkii 2014 ay shidaalka uga soo xiraysay lacag dhan $1 bilyan oo faa'iido ah. laakiin taasi oo jirta haddana dadka waddanka ku nool waxay weli sii ahaadeen qaybo ka mid ah dadka dunida ugu faqiirsan. inta badan shidaalka dalka Chad waxaa dhexda kaga maran shirkado badankooda Mareykan ah, kuwaas oo heshiisyo duugoobay dartood ku haysta xitaa shidaalka kaydka ee waddankaas. dhanka kalena shiinaha oo ilaashanaya istiraatiijiyadeeda dhanka shidaalka caalamiga ah ayaa iyaduna waxa ay joogitaan ku leedahay waddankaasi Chad, iyadoo soo gelitaankeedii waddankaasi ku kasbatay dhismayaasha mashaariic waaweyn oo deeqa iyo hagaajinta wadooyinka dalkaas. tallaabooyinkan oo ah kuwa ay shiinuhu ka soo hormarinayaan marka ay doonayaan inay dal la galaan heshiisyo waaweyn oo dhanka shidaal qodista. dowladda Chad marka ay noqdo shiinuhu waxay u yihiin shay agtooda qiimo kale, iyagoo u arka waddan aan soo faragelin siyaasadda gudaha ee waddanka Chad leeyahay, taasoo ah calaamad ay shiinuhu kaga duwan yihiin wadamada reer galbeedka ee tartanka kula jira. kaalmooyinka dhaqaale ee reer galbeedku soo marayaan baanka adduunku waa kuwo bixintoodu ay shuruudo ku xiran yihiin, sida hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda iyo in faa'iidada ka soo xirota shidaalka ay wadamadu ku bixiyaan dagaalanka faqriga. laakiin shiinuhu arrimaha noocaasi shaqo kuma laha, iyagoo xitaa deymaha ay siinayaan dalalka Afrikaanka aan haba yaraatee ku xidhan wax shuruudo ah oo la xusi karo.
waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Chad Ahmed Alaami oo arrintaasi ka faalloonay. markaad eegto Shiinaha wadahadaladooda iyo heshiisyada la galayo waxa ay u badan yihiin oo ku dhisan yihiin maslaxad ay labada dhinac helaan waana iskaashi faa'iido guud yeelanaya waa mid aan wax shuruud ah ku xidhnayn oo ilaalinaya madax bannaanida dalka ay heshiiska la galayaan laakiin markaynu eegno dalalka reer galbeedka wax kasta oo idin dhexmara waxa ay xiriir la yeelanayaan duruufta siyaasadeed ee wadankaaga ka jira iyo shuruudo ay ku hordhigayaan waliba taa macnaheedu maaha in aan danaynayn hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda laakiin waxa la isweydiin karaa maxay wadamada reer galbeedku u raaci waayeen dhabaha xaqiiqda ah ee wadan waliba shacabkiisu ku horumarin karo halkii ay cadaadis ka saari lahaayeen dawladaha jira occidentaux évidemment et je ne veux pas dire que c'est dans la coopération avec le pays xilligan qayb badan oo ka mid ah shidaalka uu soo saaro dalka Chad ayaa loo dhoofiyaa wadanka Shiinaha iyagoo sidoo kalena Shiinuhu hawlo shidaal baadhiseed oo ballaaran ka wada galbeedka wadankaas iyadoo gobolada iyo degmooyinka laga sameeyay guddiyo bulshada rayidka ah ka kooban oo dabagal ku sameeya in faa'iidada laga helay shidaalku ay sidii loo ballan qaaday wada gaadhay dadka iyadoo guddiyadaasi ay xitaa kulamo la qaataan madaxda shirkadaha Shiinaha ee shidaalka ka qoda dalkooda Mr. Gilberto Mondo oo ah muwaadin u dhashay wadanka Chad waxa uu madax ka yahay mid ka mid ah guddiyada rayidka ee madaxa bannaan ee qaabilsan kormeerka iyo la socodka shidaalka iyo dhaqaalaha ka soo xirooda. Pour le cas des Chinois markaynu ka hadlayno Shiinaha hadafkoodu waa cad yahay waxay ku sheegayaan inay u yimaadeen dalalka Afrika si ay u maalgashadaan iyaga oo aan soo faragelin siyaasadaha gudahooda ka aloosan waxayna kula macaamilaan iyaga oo madax bannaanidooda waxyeelayn annagu markaa ka Afrikaan ahaan waxay naga mudan yihiin soo dhaweyn laakiin waxa sidoo kale noo yimaada shirkadaha reer galbeedka oo ay daba taagan yihiin wadamadooda iyo hay'adaha xuquuqul insaanka iyagoo sida khudbado dhinaca dimuqraadiyadda ah iyadoo haddaba dalka Shiinuhu ay sidoo kale u heshiisyo dhanka shidaalka ka galeen qaaradda Latin America gaar ahaan heshiisyo xilliga dheer la saxiixday dalka Venezuela oo ah dalka haysta kaydka shidaal ee ugu badan caalamka oo dhan siyaasad ahaan aanay isku fiicneen wadanka Mareykanka ayaa qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaynu ku eegin qaybta uu tartanka shidaal qodista caalamka ku leeyahay wadanka Mareykanku dalka Mareykanku waa wadanka shidaalka ugu badan ka soo iibsaday dalka dibadiisa isagoo la soo degay qiyaastii 25% shidaalka caalamka laga soo saaro isagoo wadanka Mareykanku tan iyo wixii ka dambeeyay dhamaadkii dagaalkii qaboobaa ka shaqeysay awoodiisa siyaasadeed iyo tiisa military isla markaana isku ballaadhiyay gacan ku haynta shidaalka caalamka gacan ku hayntaas oo ah mid ay xilligan doonayaan inay la wareegaan dalka Shiinaha oo sanadihii u dambeeyay dhaqaalihiisu uu si mucjiso ah u soo korayay arrintaas waxaa faallo inaga siinaya Mr. Richard Bombo oo hore uga tirsanaan jiray golaha Koongareeska ee dalka Mareykanka dalkayaga Mareykanka ilaa hadda waa wadanka shidaalka ugu badan dibadda kala soo dega laakiin saadaasha muuqataa waxay tilmaamaysaa in sanadaha soo socda ay Shiinuhu noqon doonaan dalka kaalinta gala taasi waxay hadidaad ku haysaa saamigayaga suuqyada shidaalka iyo awoodda aanu u leenahay soo saarka shidaalka caalamka waxayna nagu leedahay saameyn muuqata iyadoo baahida shidaalka loo qabaa ay mar walba ku xidhan tahay koboca dhaqaale ee dalkaasi samaynayo iyadoo dawladda Mareykanku ka soo iibsato dalka dibadiisa $3 oo $2 shidaalka ay isticmaasho ayaa haddana dhanka kale Mareykanku waxay xilligan yihiin dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan soo saara caalamka oo dhan waxaana dhanka xaddiga shidaal soo saarista ka horeeya oo kaliya boqortooyada Sacuudiga iyo wadanka Ruushka waxaana Mareykanku soo saaran xaddi badan oo shidaal ah iyadoo ay 90% ceelasha shidaalka ee wadanka ku yaala gacanta ku hayaan shirkado iyo ganacsato yaryar sida aynu ku arki doono halkan gobolka California oo ka mid ah deegaanadii ugu horeeyay Mareykanku ay shidaalka ka soo saaraan Mr. Crison waxa uu ka mid yahay shidaal soo saarayaasha madaxa bannaan ee gobolkaasi ku nool isagoo shaqada shidaalka ka dhaxlay aabihii iyo awowgii oo hawshan ku soo shaqaysan jiray shaqadan
aabbahay ayaa aabbihii ka dhaxlay xilligii lagu jiray dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. shirkadayadanna aniga ayaa arrimaheeda maamul mas-uul ka ah laga soo bilaabo sannadkii 1982. wax waliba waxay noogu socdeen sidii loogu talagalay ilaa la soo gaadhay dhammaadkii 80meeyadii, xilligaas oo qiimaha shidaalku hoos u dhacay. mashaakil badan ayaa naga hor yimid, laakiin hadda waxaan filayaa inay xaaladdu hagaagto 20 ilaa 30 sano ee soo socda. kadib markii uu sanadihii lasoo dhaafay qiimaha shidaalku kor uga kacay suuqyada caalamka ayaa taasi waxay suuragelisay in ganacsatada yaryar ee shidaalka Mareykanka soo saara ay dib ugu laabtaan ceelashii ay iska xidheen. xilligan mandaqadan ka midka ah gobolka California waxaa ka soo baxa 10% shidaalka Mareykanku soo saara, iyadoo 85% ceelasha shidaalka ee wadankaas ku yaalaan isla mandaqadaas. waa kan mar kale Mr. Chris Hodder oo naga faalloonaya saameynta Shiinuhu ku leeyihiin tartanka suuqyada shidaalka ee caalamka. waxa aanu sida dhabta ah u garanayno ee aanu filaynaa waa in dalabaadka Shiinuhu u qabaan shidaalka caalamka iyo sida ay uga howlgaleenba inay keentay korokicii ku yimi qiimaha shidaalka. laakiin markaan anigu ka mulkiile shirkad shidaal oo Mareykan ah aan fikirkayga cabro, uma arko in shirkadaha shidaalka ee Shiinuhu ay nala tartami karaan, waayo annagu waxaanu ahmiyad siinaa suuqyada gudaha dalka Mareykanka. sanadkii 2005 ayay ahayd markii ay shirkadii ugu horeysay ee Shiinaha laga leeyahay heshiis shidaal soo saarista la gashay shirkadaha dalka Mareykanka. laakiin siyaasiyiinta Mareykanka ee xilligaasi oo iska ilaalinayay kobaca awood saameyneed oo Shiinuhu ku yeeshaan ciidda Mareykanka ayaa hor istaagay heshiiskaasi oo ay ku safeeyeen inuu hadidaad ku yahay maslaxadda qaran ee wadanka Mareykanka. sababihii loo cuskaday joojinta heshiiskaasna waxaa golaha Koongareeska wadanka Mareykanka uga warbixiyay madaxii hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ee waqtigaas, Mr. James Wesley. Mr. Chairman, not. mudane guddoomiyey waxa aanu waajahaynaa culayska ay shirkadaha jaanibku nagu hayaan mid banda ka dambaysa. waxaanu waajahaynaa isku dayo ka imanaya diktaatooriyadda shuuciyadda ee quwadda weyn, kuwaasoo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan shirkadihii Mareykanka ahaa. dhankiisana waa kan mar kale Mr. Ricardo Bombo oo ka tirsanaan jiray golaha Koongareeska ee warbixinta sirdoonka dhageysanayay. xilliga golaha Koongareeska ee aan xubinta ka ahaa waxaa hortaalay dood ku saabsan heshiisyada shidaalka ee shirkadaha Mareykanku galaan. isla waqtigaas saxaafaddu waxay baahisay in shirkad Shiineys ah ay ku guuleysatay inay heshiis la gasho shirkad weyn oo Mareykan ah si ay shidaal uga soo wada saaraan gudaha Mareykanka, taasoo lagu macneeyay in shirkadda Shiinuhu doonayso inay gacanta ku qabato mustaqbalkayaga. arrintu markii ay halkaa gaadhayna waxay noqonaysaa mid hadidaad weyn ku haysa maslaxadayada qaranka. xiisadii xilligaa ka dhalatay heshiiskii shirkadda Shiinaha ee madaxda Mareykanku hor istaageen waxaa inooga faalloonaya Mr. Qali Lafti oo khabiir ku ah arrimaha shidaalka. arrintani waxay ku soo beegantay xilli Mareykanku isha ku hayaan isballaadhinta Shiinaha ee heer caalami, iyagoo Shiinuhu howlo kale ka waday dalalka Venezuela iyo Canada. arrinta ay Mareykanku ka warwarsanayeen waxay ahayd iyadoo Mareykanku ku tiirsanaayeen shidaalka laga soo saaro dacalka galbeed ee dunida. marka hayaanka quwad kale oo weyn sida Shiinaha oo kale ay halkaa soo gaadho, waxay khatar ula muuqatay dad badan oo Washington joogay, gaar ahaan golaha Koongareeska waxay ku haysay xaalad warwar leh. Mr. William Rice waxa uu madax ka yahay hay'adda Mareykanka u qaabilsan baayac mushtarka dibadda, waxaana uu aaminsan yahay in xitaa dalalka ganacsigu xorta yahay uu madax banaanta seeladaha baayac mushtarku leeyihiin xuduudo go'an oo aan la dhaafi karin. intooda badan khubarada dhanka ganacsigu waxay aaminsan yihiin in shidaalku yahay wax soo saar la isku beddesho. waxaa suuragal ah in qofku qayb halkan ka iibsado qayb kalena halkeer. taasina waxay sii kordhisaa uun isu dhignaanshaha tayadeeda iyo qiimaheeda. Shiinuhu markay isku dayeen inay iibsadeen shirkadda Unocal, macnaheedu wuxuu u ekaa inaanay dalka Mareykanka shidaal ka iibsan doonin, laakiin cid kale ayaa iman karta
oo halkan wax ka iibsan karta. taasi waa mid xoojinaysa madax banaanida suuqa. haddaynu eegno dalabaadka isa soo taraya ee ka imanaya Hindiya iyo Shiinuhu waxay ugu dambeyntii keenaysaa in shirkaduhu yeeshaan kayd shidaal. Shiinuhu waxay doonayeen inay Mareykanka ka iibsadaan ma aha foostooyin shidaal ah oo kaliya, laakiin waxay doonayeen inay nagala wareegaan oo naga iibsadaan awoodda wax soo saar oo dhan. haddii ay taasi suuro gasho waxay annaga nagu yeelan kartaa saameyn amni oo dhaawacda amnigayaga guud ee qaranka. runtiina nimankii shuuciyiinta ahaa ayaa isku rogay hantigoosad raasamaaliyiin ah. Mr. Kenneth Coates oo ah khabiir u dhashay dalka Canada waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka saameynta ugu ballaaran ku leh shaqada shidaalka iyo qorshayaasheeda, waxaana uu muddo la socday hawsha shirkadda shidaalka ee Unicol, waxaana uu inoo sharaxaya kaalinta shirkadda shidaalka ee Unicol ku lahayd saaxadda caalamiga. iskudaygii Shiinuhu kula wareegi lahaayeen shirkadda Unicol waxay ahayd damacii ugu sareeyay ee shirkad Shiineys ah ay gaari lahayd. arrintu ma aha mid la mid ah iibka caanaha oo kale, laakiin tamartu waa mashiin dhaqaajiya siyaasadda. sayladuna ma aha mid si dhammaystiran u madax bannaan. shirkad kasta oo shidaal oo weyni waxay leedahay qorshayaal istiraatiijiyadeed oo qarsoon. sidaynu la soconno, safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Baghdad waxa uu hore shaqaale uga ahaa shirkadda Unicol. sidoo kalena madaxweynihii hore ee Afghanistan waxa uu ka shaqaynayay shirkadda lafteeda. marka runtii waxaa jira isu dhawaansho dheeraad ah oo u dhaxeeya siyaasadda dhaqaalaha iyo shidaalka. la wareegista shirkadaha waaweyn ee shidaalku ama iibkoodu waa arrin saameyn la leh siyaasadda. qisadii ku saabsan shirkaddii Unicol ay Shiinuhu doonayeen inay ka iibsadaan Mareykankana waxay digniin u noqotay inta badan dalalka waaweyn ee caalamka, waxaana ka yaabisay dalka Mareykanka oo ogaaday inay dejiyeen qorshe ay kula macaamileen dalka Shiinaha oo kula jira tartan adag oo dhaqaale. sidoo kalena waxay kaliso ku noqotay dalka Shiinaha laftiisa oo ogaaday inay hore caalamka uga xidhnaayeen, maadaama iyaga oo ku cusub dunida hantigoosiga ay haddana umuro badan darawalinayeen. arrimahaasi waxay ku dhiirigeliyeen Shiinaha inay caalamka ka sameeyaan hawlo baaritaan oo ay ku raadinayaan shidaalka ay u baahan yihiin inay maalgashadaan, iyagoo ilaa intii ay dhaqaale ahaan soo baxeen dhaqdhaqaaq dheeraada ka sameeyey suuqyada caalamka. si haddaba ay Shiinuhu uga hortagaan ama miisaan la-eg u hordhigaan awoodda wax soo saarka shidaalka ee dalalka galbeedka, ayaa xilligan waxay Shiinuhu bedeleen siyaasadoodii hore, waxaana ay bilaabeen inay ururiyaan xulafo cusub oo dhaqaale, iyagoo heshiis dhanka shidaalka ana la gelaya dowlad kasta oo jirta nooc kasta oo ay siyaasadeedu tahayba. Mr. Hao Jianping oo ka tirsan shirkadda shidaalka ee wadaniga ee dalka Shiinaha ayaa ka hadlay arrintaas. run ahaantii hadafka ay shirkadaydu leedahay ma aha in aan shidaalka uu u baahan yahay u keeno dalkayaga, laakiin waa in aanu qayb ka qaadano sidii loo dabooli lahaa baahiyaha shidaal ee sidoo kale ka jira dalalka caalamka. haddaba saaxadda caalamiga ee uu ku socdo dagaalka ku saabsan u tartanka khayraadka shidaalka ayaa Shiinuhu waxa ay ka filayaan in Mareykanku kala hor yimaado cadaadis fara badan. sidaa daraaddeedna waxay isxulafaysi la sameeyeen wadamada ka soo horjeeda siyaasadda Mareykanka sida Jamhuuriyadda Iiraan oo kale oo Shiinaha u noqotay saaxiib muhiim ah. su-aashu waxay tahay maxay Iiraan ku danaynaysaa xulafo ay la noqoto Shiinaha? waa kan Mr. Maxamed Rida Jaliili oo ku takhasusay xiriirka caalamiga. Shiinuhu waa dalka ay mudnaanta koowaad siinayaan wadamada qaaradda Aasiya oo dhan, waayo waa dawladda kaliya ee qaaradda ka tirsan ee joogto ku ah golaha amniga, isla markaana leh awoodda qayaxan ee veto. aragtidaa darteed waxaa jira isu dhawaansho ay Shiinaha la sameynayaan dalalka dhibaatooyinka kala kulma go'aamada golaha amniga sida Iiraan oo kale oo hore loogu go'aamiyay barnaamijkeeda quwadda nukliyeerka dartii. Les Chinois d'accusation de meelaha kale ay Shiinuhu ka heleen xulafadii ay raadinayeen waxaa ka mid ah dalka Suudaan oo ah halka ay Shiinuhu ka heleen shidaalka ugu badan ee dibadda kala soo degaan.
dalkaas oo ay shirkadaha shidaalka ee reer galbeedku muddo dheer ka warwareegayeen maalgashigiisa iyagoo had iyo jeer ku eedeynaya in dowladaha ka jira ay cadaadis ku hayaan shucuubtooda laakiin shiinuhu arrimaha noocaasa uma arkaan wax dhibaata sidoo kalena wax faragelina kuma sameeyaan siyaasadda gudaha ee waddanka suudaan faragelin la-aanta siyaasadeed ee shiinaha darteed xukuumadda suudaan waxay dhanka kale u fududeysay shirkadaha shiinaha ee dalkeeda maalgashaday in dadka laga raro deegaanada u dhow goobaha ay ceelasha shidaalka ku yaalaan gaar ahaan gobolka daarfuur oo ay ku yaalaan qayb ballaadhan oo ceelasha shidaalka halkan magaalada New York ee dalka Mareykanka xarunta golaha amniga ee qaramada midoobay inta badan dalalka caalamku waxay mowqif adag ka istaagaan arrimaha khuseeya wadamada Suudaan iyo Iiraan laakiin go'aan kasta oo adag oo ay ka qaadan lahaayeen waxa looga gabanaya dalka Shiinaha oo ku hanjabay inay diidmada qayaxan ee fiitooga saari doonaan cunaqabatayn kasta oo la doono in lagu soo rogo dalalka la xulafada ah مستر مجران دامبليف وأرجع جارك قرمده مدبي وقابل سنكوح عالمي حلنت خلافات أو كوح ملح بنان وهراء وهو قشي حصدي السياسة دي كوي أمني قبل كدارفور قلبيت كالسودان. marnaba hore inooma soo marin in shiinuhu ay taageerayaan go'aan ka dhan ah Suudaan oo qaramada midoobay ka soo baxay ha ahaato mid culays lagu saarayo ama cunaqabateyn ah laakiin taad bedelkeeda waxay dhowr jeer shiinuhu carqaladeeyeen go'aamo la doonayo in cadaadis lagu saaro ama lagu cambaareeyo Suudaan kuwaasoo ay soo jeediyeen dalalka kale ee xubnaha ka ah golaha amniga iyagoo shiinuhu sidoo kale wax ka bedel ku sameeyay qaabka go'aamada qaarkood u qornaayeen shiinuhu waxay kaloo ka aamusi jireen go'aamada la isku raaco ee ku saabsan Suudaan gaar ahaan gobolka Darfur waxaynu u talaabanaa dalka jaarka la ee Suudaan ee Chad oo ay saameyn ku lahayd xiisadii gobolka Darfur kadib markii ay kumanaan qoys oo qaxooti iyo maleeshiyaadka mucaaradka ah ee gobolkaasi u baxsadeen dhanka dalka Chad kana samaysteen saldhigyo qarsoodi oo ay ka soo abaabulaan howlgaladooda taa bedelkeena xukuumadda Suudaan gudaha Chad ka abuurtay maleeshiyaad mucaarad oo ay hubka iyo saanada basiinaysi maleeshiyaadka oo ay shiinuhu laftoodu u isticmaaleen inay culays amni ku saaraan dalka Chad oo ay colaad siyaasadeed kala dhaxaysay Shiinaha taasoo ka soo bilaabatay markii dawladda Chad ay aqoonsatay dalka Taiwan oo ay shiinuhu aaminsan yihiin inuu ka mid yahay dhulkeeda culayskii badnaa ee shiinuhu saaraan dawladda Chadna waxay keentay inay xukuumadda Chad dib uga fikirto saaxiibtinimadii kala dhaxaysay Taiwan waxaana si fudud u jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Taiwan kadibna waxa ay dib u cusboonaysiisay xiriirka ay la lahaan jireen dalweynaha Shiinaha taasina waxay dhabaha u xadhay inay dawladda Chad ka nasato oo ka nabad gasho colaadii mucaaradka hubaysan halka shiinuhuna ay fursad u heleen inay heshiisyo cusub oo shidaal soo saar la galaan dalka Chad Mr. Ahmed Alaami waa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Chad waxaana uu ka hadlaya xiriirka dalkiisa oo la yeeshay dalka Shiinaha La place que occupe markaynu eegno ahmiyadda ay shiinuhu u leeyihiin caalamka hadday tahay dhinacyada siyaasadda ganacsiga iyo istiraatiijiyadda iyo sidoo kale xubinta ay ka tahay golaha amniga dalkayagu iskama indhatiri karo xidhiidh ay la yeeshaan waxaana noo suuragal ah in aanu Shiinaha ka helno iskaashi ka muhiimsan kii aanu ka heli lahayn Taiwan un certain nombre de problèmes dagaalkan cusub ee dhanka shidaalka ayaa Mareykanku waxay awoodda saareen ilaalinta ammaanka mareennada uu shidaalku soo maro iyadoo dhanka kalena warwar dheeraada ka qaba xaaladda ammaanka ee gobolka Khaliijka Carabta oo sii xumaanaysa maalinba taagta iyo shidaalka kaydka oo sii yaraanaya taasina waxay keentay inay Ameerikaanku ka fikiraan deegaano kale oo cusub oo ay shidaal u doontaan taasoo dhabaha u sii xaadhaysa isku horimaad ay Mareykanku la galaan dalka Shiinaha Mr. Robert McLeod waxa uu la taliyay dhanka ammaanka oo ahaa dhowr ka mid ah madaxweynayaasha dalka Mareykanka ee sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii ee qarnigeena dhaafay waxaana uu inooga faalloonayaa tartanka dhanka shidaalka ee caalamka iyo heerka uu gaarsiisan yahay caalamka waxaa ka jira tartan adag oo dhanka shidaalka ah ma aaminsani in shiinuhu shidaal dartii u gelayaan dagaal weyne dhaca waayo colaad kasta oo timaada waxay lumin doontaa dhaqaalaha ay kobcinayaan It is true that they're responsible. There's over energy. Thank you.